Wacan wanaagsan saaxiibayaal, halkan waa Hami FM. ku soo dhawaada warkiyaga. Qodobada ugu dooran warkeena waxaa ka mid ah muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika, khayro oo bixiyay amar la xiriira shaqaalaha ay dowladda Soomaaliya qaadanayso, dagaal ka dhacay degmada Ceelwaaq iyo faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya dad loo soo qabqabtay weerar maalin ka hor ka dhacay magaalada Kismaayo. Qodobada dibaddana waxaa ugu dooran Kuuriyada Waqooyi oo digniin u dirtay Mareykanka. Qodobadaasi iyo qodobadii haddii nagu soo kordho oo faahfaahsanaya goordhow maqli doontaan. mar kale isku soo noqod wacan. Maalinimadu waa Khamiis, taariikhdu ku beegan tahay 11 bisha 6 sanadka 2020. kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan oo idiin sii ambaqaad anigoo Ibraahim Jamuni. aynu ku bilownay khayro oo bixiyay amar la xiriira shaqaalaha ay dowladda Soomaaliya qaadanayso. Amuurta qodobkaasi waxa inoo soo koobaya wariyahayaga Cabduqaadir Daawud Seego. warar lagu kalsoon yahay oo sheegay warbaahinta Hami FM ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo dhammaan golaha wasiirada iyo xafiisyada kale ee dowladda uu sheegay inaan la qoran karin shaqaale cusub oo dowladeed ilaa iyo amar dambe sida ay inoo sheegeen ilo ku dhow Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa amray in marka hore la shaqaaleysiiyo kuwii ku-meel gaarka ahaa ee joogay xafiisyada dowladda. Markii kuwaas loo helo shaqaaleysiin ayuu sheegay in la qaadan doono kuwa cusub. amarkan oo soo baxay dhowr waad ka hor ayaa Khayre wuxuu ku sheegay in xafiiskii shaqaale looga baahdo in looga soo wareejin doono xafiis kale oo laga heli karo shaqaale ku-meel gaar ah oo qaban kara shaqadii loo baahdo. arrintan ayaa doodeeda waxaa bilaabatay markii ay xayeysiisay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, taas oo ay markii dambe sababtay buuq iyo hadal hayn badan. amarka ka soo baxay Khayre ayaa markii dambe lagu joojiyay booskii laga xayeysiiyay, iyadoo kadibna uu soo baxay amarka. xubno ka mid ah wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa warbaahinta Hami u sheegay inaysan jirin qof qaadan kara shaqaale cusub, haddii ay dhacdana tallaabo laga qaadi doono. Cabduqaadir Daawud, warbaahinta Hami FM, Bradwin. aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga Seeko. dhinaca kale, dad loo soo qabqabtay weerar ka dhacay magaalada Kismaayo. hay-adda nabad sugidda dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen howlgallo ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Kismaayo kadib weerar bambaano oo habeen ka hor ka dhacay suuqa Golole ee magaaladaasi. gaashaanle dhexe Ismaaciil Faarax Raage oo ka tirsan saraakiisha nabad sugidda Jubbaland oo warbaahinta kula hadlay Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in weerar bambaano lagu qaaday maqaaxi ku taala agaarka argada magaalada Kismaayo, isla markaana hal ruux uu ku geeriyooday, tiro dad oo kalena ay ku dhaawacmeen. waxa uu sheegay in howlgalladii ugu dambeeyay oo ay sameeyeen ciidamada Jubbaland lagu soo qabqabtay dad looga shakisan yahay inay la shaqeeyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab kana dambeeyaan weerarkaasi, isla markaana ay baaris ku wadaan lana kala saari doono. ugu dambeyn, gaashaanle dhexe Ismaaciil Faarax Raage oo ka tirsan saraakiisha nabad sugidda maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka ku nool magaalada Kismaayo in ay laamaha amniga la shaqeeyaan si loo sugo amniga magaalada Kismaayo. muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika, waxaa qodobkaasi hilgooniye ku hayay wariyahayaga Yaasiin Cali Axmed Looyel. koox burcad oo Koonfur Afrikaan ah ayaa waxay gudaha dalkaasi ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida halkaasi ku dhaqan. kooxda ayaa weerartay muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Yaasiin Maxamed Xasan, isaga oo ku sugnaa meel aan ka fogeyn goobtiisa shaqada ee ku taala magaalada Rustenburg ee dalkaasi Koonfur Afrika. kooxdii burcadkeed ee dilka u geystay ayaa goobta isaga baxsatay, waxaana dadka ku sugan Koonfur Afrika ay sheegeen in meydka muwaadinka Soomaaliyeed muddo kadib goobta laga qaaday. dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku korortay dilalka lagu geysto Soomaalida, waxaana habeen ka hor magaalada Cape Town ee caasimadda waddankaasi Koonfur Afrika lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Ibraahim Maxamed Xasan, iyada oo burcadii ka dambeysay dilkaasi goobta ka baxsadeen. sanadkii tagay 2019 ayaa dalkaasi Koonfur Afrika dilalkii ugu badnaa waxaa loo geystay Soomaalida iyo Ethiopian ganacsi halkaasi u joogay, iyada dowladda Koonfur Afrika aysan dilkaasi ka hadlin. Yaasiin Cali Axmed, Radio TV Hami, Bradwin. aad baad u mahadsan tahay Looyel. dhanka kale, dagaal ka dhacay degmada Ceelwaaq iyo faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo xalay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ku dhex maray ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab sida la sheegay ay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada Jubbaland ee degmada Ceelwaaq, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in muddo ah socday. Goobjoogayaal ayaa goorsii horeysay waxa ay warbaahintu u xaqiijiyeen inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac, hase yeeshee aysan caddayn karin khasaaraha dhabta ah ee kala gaaray labada dhinac maadaama ay ahayd dagaalka xilliga uu dhacayay xilli dambe oo xalay. Wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in isgaarsiinta degmada Ceelwaaq ay maanta hawada ka maqan tahay, iyada oo taasi aanan la ogeyn, waxaana yar wararka laga heli karo dagaalkii ciidamada Jubbaland iyo Al-Shabaab ku dhex maray deegaanka Ceelwaaq. Saraakiisha ciidamada Jubbaland weli dhankooda kama aysan hadlin dagaalka ka dhacay degmada Ceelwaaq, balse saacadaha soo socda ayaa la filayaa inay faahfaahin ka bixiyaan dagaalkani ka dhacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. saaxiibada aynu jecelnahay, dhammaan qodobada aad soo maqasheen waa qodobadii ugu dooroonaa dalka. Markan qodobada dibadda haddii aynu isha u raaricino, Kuuriyada Waqooyi oo digniin u dirtay dalka Mareykanka. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay sheegtay in Mareykanka looga baahan yahay inuusan ka hadlin arrimaha xiriirka labada Kuuriyo waa haddii uu Mareykanka doonayo in doorashooyinka madaxtinimo ee kusoo wajahan ay u dhacaan si habsami leh. Bayaankan ayaa lagu baahiyey wakaaladda wararka rasmiga ee Kuuriyada Waqooyi ee loo soo gaabiyo magaceeda KCNA ayaa lagu sheegay in Mareykanka ay afkooda qabsadaan oo aysan arrimaha labada Kuuriyo faraha la soo galin. Bayaankan ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanka ay xaliyaan dhibaatooyinka dalkooda ka jira. Kuuriyada Waqooyi ayaa horaantii toddobaadkani jartay xiriirka kala dhexeeya Kuuriyada Koonfureed kadib markii ay Seoul ku guuldareysatay in ay joojiso warqado iyo qalab kale oo ay soo dirayeen dad u goostay dhanka koonfurta. Hadalkani ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi ayaa ku soo beegmaya kadib markii xukuumadda Washington ay sheegtay inay ka xun tahay in Pyongyang ay hakiso xiriirka kala dhexeeya Seoul. Wadaxaajoodiyadii ku saabsanaa soo afjaridda barnaamijka hubka nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi ayaa la isku mari waayey iyadoo ay jirto in ay kulmeen labada madaxweyne ee Donald Trump iyo hogaamiyaha mayalka adag ee Kuuriyada Waqooyi Mr. Kim Jong-un. saaxiibada qiimaha iyo qaayaha inaga mudan guud ahaan waa inaga inta warkii oo aad ka daawanayseen raadiyaha iyo TV-ga caalamiga Hami xaruntiisa magaalada Beledweyne. Warsoo jeediyuhu anigoo Jamuni tan iyo warkaan mid lacayn intaan dib kaga kulmayno. Nabadgelyo.